inagunba wax waynu aragnay waxa magac lagu tiriyay waxa laga yaabaa maanta haddii aan idin weydiiyo nabi muxamed mise caruuruu dhalay inay adkaan doonto cidda si fiican uga jawaabi doon laakiin haddaan idin weydiiyo David Beckham imisuu dhalay waa la wada garan karaa waayo Beckham iyo Maradona iyo kan iyo hebelada tani waa laynoo buunbuuniyey dabeetana wax weyn oo cajaba baa laga dhigay laakiin really haddaad caqli fiican ku eegto maxay qabtaan caag baa loo neefeeyaa dabeetana eriyaa la yidhaahdaa 2 birood dhexgeliya soo intaa maaha intaasi nolosha bini'aadamka maxay ku kordhisaa caag haddii la neefeeyo oo dabeetana 2 birood laga dhex saaro waxba kuma kordhiso laakiin waxaa loogu talagalay in qaabkan laynoo fakarsiiyo waxaa la yidhi ninka kani caaggaa la neefeeyey 2 birood ee dhexeeyo $40 milyan oo dhaale ku qaata $40 million ayuu ku qaataa waxaa jira Western Europe dhallinyarada waxaa loogu talagalay in la mashquuliyo qofku markuu dhallinyaro yahay in la mashquuliyo qaab waxbarasho dheer in la geliyo 12 sannadooda oo asliyan ku salaysan in da'da intuu ka yariyo qofka si loo hayn karo aanu suuqa shaqada iyo waxa si u soo gelin mar labaad in qofkan la mashquuliyo oo laga mashquuliyo qadaayaadka bulshada mesela Yurub lixdanada wixii ka horeeyay dhalinyaradu khatar bay ku hayeen siyaasadka Yurub waxa bedeli jiray lixdanadii wixii ka horeeyay ardada jaamacaadka ku jira France oo kale 1968kii ardadii jaamacaadku inqilaabadii waxay sameeyeen waxay qarka u gaadhay in mar labaad thawra Faransiya dib loo inqilaabo waxay ahaan jireen shuuciyiintii hore dhulkii ugu tirada badnaa ee ka faa'iideysteen dhalinyaro joogay jaamacaadka iyo wixii ka hooseeyay laakiin dadkaasi si suuqa siyaasadda looga saaro waxa loo fakiray suuq cusub in loo sameeyo sport and music baa la geliyay qofka dhalinyarada waxa la yiraahdo caalamkan siyaasadani waxa ka bax caalamka la adigu leedahay caalamka aad leedahay waa maxay ama waa music damdamta dhageyso iyo dadka qaylinaya oo waliba waxay ku qaylinayaan xataa aanu jirin literature-ka hadii la eego dadka qaylinaya oo dhamay cabaadaya wax ay ku hadlayaan ma jiro waa uun iska cabaad lagu daray music lagu daray iyo kuwa la yiri kubadda area kubaddu waxa laga yaabaa inaad isleedahay war Mustafa maanta ma sportigu doonayeen wax ka sheego ama uu caabayo qofka bini'aadamka ah inuu jirkiisa kala bixiyo oo dhisawa wax fiican caafimaadkiisa inuu ka shaqeeyo waa wax fiican waagay kubaddu wax caafimaad u loo adeegsada ahayd hobby bay ahayd hobbyga maxaa la yiraahdaa qofku shaqo haystay waxana hobby ahaan buu sameey jiray ma jirin nin yiraahdaa inuu kubad baan ka shaqeeyayo intaan soo kalaho lacag lagu siiyaa ma jirin qofku shaqo kale uu kala heli jiray dhakhtar buu ahaa askari buu ahaa booliis buu ahaa siyaasi buu ahaa shaqo kale uu haystay kubadna waa ciyaari jiray kubadda markaa waxa iska ahayd nooc entertainment yar oo fudud iyo inta ugu badan la wuxuu qofka bini'aadamka isku dayo jirkiisa inuu ku kala bixiyo laakiin kaawa laga saaro waxa la geeyo suuqii dhaqaalaha waxa laga dhigay shirkadka ugu waaweyn ee maalqabeena waxa laga dhigay inamada yaryar ka dhex boodbooda in mid waliba 40 milyan qaato waxa laga dhigay in dadkoo dhan usbuuc dhan dunida dhamay TV-yada hor fadhida la yiraahdo koobkii dunida la ciyaaraya koobka dunida muxuu yahay usbuuc kale la hor fadhiyo la yiraahdo koobkii Yurub baa la ciyaaraya dadkii oo dhan koobabay daawanayaan waayo waa model si loo sameeyo la rabo dadku inay noocan ugu daydaan waxa laga yaabaa adigu maanta inaad adneys weydiinin subaxii marka iskuulka isugu timaadaba waxa tiraadaan xalaya badiyay liiga ka sareeya toddobaadkan Manchester United baa ugu sareysa iyaba lagu muransay Real Madrid baa wada maxaa waxaan keenay waxa weeyaan iyadoo ay luntay huwiyadii ama identity-ga qofku waxaynu u baahanay inagu inaan isweydiino identity-ga kumaatay man ana inaad marka hore isweydiiso kumaanahay maxaan u noolahay maxaan rabaa inaan dunidan ka qabto maxaan u joogaa haddaad taa garato waxaad garanaysaa yaad ku dayanaysaa markaa yaa model ku ah
yaa tusaale kuwa oo aad ku dayanaysaa waxaynu u baahanay inaynu garanno inaad tahay qof muslima oo ilaahay rumeeyey subxaanahu wa tacaala waxaad garanaysaa noloshu inaad wakhti yar joogayso wakhtigaa yar aad joogtaana inuu yahay wakhti lagu itixaamayo lagugu talagalay inaad ka faa'iidaysato waxaad og tahay in aad dhiman doonto